بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدين والدين. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عندما أقول على هيدا مسلمين تعمل كستيج شوغان ما أنت ومالين تاريخا وصدق كبش الشعبان كنا في البقولية فرتك هجرية taasi oo waafaqsan 5 May 2019. runtii caawa oo shaki la'aana waxay nagu soo foodlay bishii barkaysneed ee Ramadaan. Ilaahay hayna gaarsiiyo subxaanahu wa ta'aala. bishan nabigeena calayhi salaatu wasalaam markay soo gasho wuxuu ku ducaysan jiray duco aad u qaaliya. وديه جري الله أكبر اللهم أهلة علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا والرب الله. ندعو عاد قاليه وبشو كسولويني بالعصوبة لنا أي رسول سلام عليه. المركة دبشة وبالولن عاد قاليه تضبطنا ولا هنا أي جري oo jeclaa inay bishatan soo gaaraan walow inagu ayna wali gaarin oo ilaahay u qadarin oo saacadoodii ka dhamaatay. marka waxaan jeclahay inaan bal kalimaad yar Ramadaanta ku saabsan aan la wadaago. dabcanna waxaa la yiraahdaa story ee qaybta mowqaca Facebook dad badan baa ku taxan wax yar soo dhigo ee walaalahay. aniguna waxaan jeclaystay dadkaas inaan wixii khayran dabcan la wadaago. خيركنا ونسخد دار منا دتك وناكسن الله سبحانه وتعالى بحولي والعصر إن الإنسان لفي خسر حالي دتك أوردر وكلاي 7 أما عصر كل عرتي قل على للذين آمنوا كويمال وعملوا الصالحات عمل كوناكسن 8 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حقا ويسكو الشيء صبر كنا وسكو دار كده ومضوا سلاسل ودريميس إني مركزة إني خيرك أنا كدرجين صدق الله سبحانه وتعالى وقاله ولتكن أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. إذا كم من القرآن ضدك وناقة والشيء يبقى إلهي سبحانه وتعالى وقرنا خيرك الجبنية يواجب تابع المدة سيد علماء بدن sheegaan. marka sidoo kalena Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu bay nagu sheegay inaynu nahay ummadaha ugu khayrka badan oo wanaagana isbarayso maanta iska reebis. marka qof kasta xaalad kasta ku jiro haddaad hawl ku jirtay haddaad shaqo ku jirtay haddaad bariis raadinaysana waa amran tahay inaad dadkan wax u sheegtid. marka taas uun horta kelmadeedu daaran tahay wixii mas'uuliyad saaran iska rid inta markan ka yimaado dhaca walaal bishan waxa ku jira bisha horta barakeysan ee Ramadaan waa bil qaali. ilaahay qofku gaarsiina waa qof nasiib weyn ilaahay siiyo subhanahu wa ta'ala. waayo saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxay dhigi jireen 6 bilood markay ka tagto ay oran jireen ilaahu Ramadaantii naga tagtay ilaahu naga aqbal. 6 bilood ee bisha Ramadaan ay kale soo dhow sida tan imika inagu aanu baadi goobayno kalaan markay 6 bilood ka hadho bisha Ramadaan waxa uu jiray ilaahu bisha Ramadaan ay soo socotay gaarsiin. haddaba su'aashu waxa weeyaan bisha sida loogu hiloobay ee saxaabadu ay isla warajiinayeen khayrkeedu intuu leeyahay lama qiyaasi karo. waa bil wax kasta oo qofku sameeyo aw bilaha kala la mid ahay. tusaale ahaan quraan haddaad akhrido la mid maaha أجر كان كاضي أجر كبلاها كلا قرآن كلا خردي وكحوجي ونكلا أجر بديه ده صنع وبا إلهي سبحانه وتعالى وبرقني أفراد أركان الإسلام وفي الإسلام يعني تينو صوما وكمل قفكي كلا مكرنا سعيد حالة الله قصور يبوي جرا وحضور دار له ومحسي مركا بيشان صدق كلا ولا للوحة كجرا هبين آذو قاليه ولا يلاحظوا ليلة القدر خير من 1000 شهر وهذا كم بلوت كخير بقى
83 sano dheeraad inay culimmadu yidhaahdaan ayaan rajaynayaa. waayo ummadeennu nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in ay tahay ummad cimrigeegu gaaban yahay oo 70 iyo 60 waa ka rasuulku lahaa 60 ilaa 70 ayuu cimriga ummaddeedin u badan yahay. marka dee ummadihii horena kumayaal bay jirayeen oo ummado waxay ahayd dee ilaahay cimri ku manaystay. tusaale dee nabiyullaahi waad garanaysaa nuux oo kale inuu 950 sano ummaddiisa diinta ugu yeedhayay. marka intuu jiray ee kalena markaad ku darto waxay noqonaysaa maasha allah. marka inagu si ummadahaasi maalinka qiyaame aynu camalka ugu dhowaano ama aan ka badanno, ilaahay wuxuuna siiyey munaasabaad aynu ku gaadhno oo khayrkiina la kordhinayo. marka dee tan oo kale habeenkaa qaaliga ah ee qof 83 sano cibaadaysanayay ayaa habeenkaa hadduu ilaahay ku waafajiyo la mid yahay oo cibaado wanaagsan aad la timaado. dee laylatulqadriguna maaha wax la raadinayo oo sidii dadkii hore laylatulqadr waxa la jiray laylatulqadr baa ku salaamayna ma hadda islaam waa khayr weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka ka aqbalayo. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inaga dhigo kuwaas. waayo haddii aad waxaan ku yidhi 4 Ramadaan 5 Ramadaan laga aqbalo oo min 83 ku dhufo dee dadkaan sheegayni ee kumaadka jirayay waad ku dhowaanaysaa. marka iyo acmaal fara badan baa jirta iyo bal cashuuro la soomo carafo la soomo iyagna waxyaabaha lagaaga diideynayo dunuubta faraha badan dabcan lagugu soo qaadayo kor ma garanaysaa khayrkooda. marka qofka muuminkiina dee inteeru adduunyada ku nool yahay ee maalmaha yara koobana khayrka ma dhargayo. marka inuu meelaha kolba khayrka wanaagsan lagu sheego awoodda saar waa loo baahaya. bisha tan Ramadaan oo bilaadu qaaliya mana ogid inaad dambe gaadhayso. marka waxaa loo baahan yahay inuu qofku hadduu ilaahay nabad ku gaadhsiiyo oo uu dhammaysto in ay noqoto bil uu ka faa'iidaysto. waxaynu kaga faa'iidaysanaynaa inaynu sadaqad bixino, waxaynu kaga faa'iidaysanaynaa inaynu quraan akhriska badino, waxaynu kaga faa'iidaysanaynaa inaynu taraawiixa ka faa'iidaysano iyo leylka. macnaha wax kasta oo inaan dadka xataa wanaagga u sheegno xumaanta ka reebno duruus khayriya dadka la wadaagi karno haddaan fursado u helno. marka qofku dee meelaha laga soo galayaa bisha tan waa badan yihiin. marka qofku waxa la doonayaa dee inuu ka faa'iidaysto. iminka imaamu shaafici oo kale markaan qiraa'ada qur-aanka oo kale haddaan eego waxaa la yidhi bisha tan 60 jeer buu dhammayn jiray. markaad u qaybiso malaha habeen iyo maalintii buu dhammaynayaan maray 60 jeer waa badan tahay. marka hadduuna gelingelinba dhammaynin oo laba lagu dhufanay 30 60 jeer buu dhammaynayay. marka inaguna dee kolley mar iyo laba iyo keena ugu badan baa malaha 4 jeer 5 jeer dhamay. marka inaan dadaalno sidaan uga kordhinayna filankeed qabana waa loo baahan yahay bisha ka faa'iidaysano. culimo fara badanna oo waxaan u malaynayaa waxaan rajaynayaa Abu Xaniifa inuu ahaa mise Axmed bin Xambal wayba iska dayn jireen duruusta ay dhigayaan dadka u faa'iideynayaan. bisha shahru quraan bay odhan jireen waana bishii quraanka la soo dejiyay oo munaasabaad fara badan ayaa bisha tan ku beegan. markay iska joojiyaan bisha duruusta iska daayaan khayrkay fursad siinayeen oo ay ka faa'iideysay. marka bishan waa bisha aadka u qaaliga qof kasta oo walaalkay oo kilibka soo gaadho waxaan ku dardaarayaa inuu bisha ka faa'iideysto. bisha waynu cafiska ku dadaalo dadka iska cafiyo sadaqada inuu ku dadaalo inuu wanaagga ka shaqeeyo. bishan midda kale waa fursad weyn. nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam shayaadiinta oo dhan waa la xidhaya. culimada is weydiisay oo shayaadiinta maqaar baa la xidhay mise qaar baa la sii deynay dhammaantood waa la xidhaya baa. marka albaabadii jannadana waa lagu furaya. te marka waa gal weey ilaahay bisha oo la gaarsiiyo ummadan muslimiinta ah ee maanta dad badan baa fursadaha maanta ay dad badan haystaan muslimiinta kamid ah qaar baa wadamadoodii lagu dhibayaa, qaar baa diintoodii la cararay,
qaar bay bishaasi ugu soo gelaysaa iyagoo waxaan ku ihi carqalad iyo hawl ku jira. ilahay waxaan ka baryaynaa inuu kuwaana oo sideenna khayr jeclaa inuu ilaahay dhibka haysta ka dulqaado. allahuma aamiin. allah ka dulqaado bishaasi kuwa naarta laga xoreeyo ilaahay ha naga dhigo oo laylatulqadri fursaddaa u helan ilaahay naga dhigo. kolley sidaan idiin sheegay walaalahayga ku taxan oo aada u badan ayaan jeclaystay inaan kelmaddaa la wadaago khayr ka wadaagno. ilaahay bishaan hayna gaadhsiiyo. bishaana jadwal fara badan oo waxaan ku leeyahay howlaha adduunya iska kala yaraynayno aynu khayrkaaga faa'iidaysanayna ayaynu isku ognahay. kuwii fursaddaas inaad tagala gaadhaysa ilaahay baa garan, qof gaadhaya intaynan ma garanayo. marka inaynu muhiimad gaara hadduu ilaahay na gaadhsiiya saarna la doonaya. intaa ma jeclaystay inaan walaalahay la wadaago. waa anigoo ah barkhadle abiib cumar injineer maqone oo walaalkiin miskiin anigana ii soo duceeya dhammaantiin cafiya saamax. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.